aabihiis ayaa boqolaal kun oo shacab waxa uu ku dilay magaalada Muqdisho laakiin 12 sano kadib markii aabihii la dilay ayuu isna waxa uu wataa qori waxaana uu dhacayaa shacabka magaalada Muqdisho asiga iyo aabihiina waxay ka wada yimaadeen magaalada Hargeysa waxaan kula wadaagi doonaa xog culus wiilkii uu dhalay amiirkii ugu sareeyay khawaarijta al-shabaab ee tuuga isku bedelay ee Muqdisho mobilada ku dhacay soo dhawow sida aragtaa qaybta hoose ee commentiga noogu reeb qof walbana waa in muuqaalkan uu share gareeyaa si dadka kale u sii gaaro laakiin hore ka saar wiilkan aad aragtaan waxaa dhalay hogaamiyihii khawaarijta argagixisada al-shabaab Ahmed Godane waxaana lagu magacaabaa Cabdigariin Ahmed Godane 12 sano ka hor ayaa la dilay Ahmed Godane oo ahaa ninkii ugu sareeyay argagixisada uguna muhiimsanaa argagixisada kana mid ahaa dadka iska lahaa fikirka argagixisada looga abuuray koonfurta Soomaaliya labaduba isaga iyo aabihi waxay ka yimaadeen magaalada Hargeysa Ahmed Godane marka uu ka soo tagay Hargeysa waxa uu yimid koonfurta fikirka argagixisada al-shabaab ayuuna hogaaminayay khawaarijta ayuu amrayay inay dilaan shacabka isku qarxiyaan baabi'iyaan qof walba oo wax gala oo Muqdisho ku sugan la dilo kii askar ama sarkaal noqday la dilo kii wax bartay la dilo kii madaxiisa ay u muuqato inuu noqon karo hogaamiye koonfureed la dilo hawshaas ayuu qabtay waqti badan ayuuna hayay boqolaal kun oo qof oo Soomaaliyeed oo shacab u badan ayaana isaga sababtiisa loo dilay oo Muqdisho ku dhintay iyo koonfurta guud ahaan Soomaaliya isaga 12 sano ka hor ayaa la khaarijiyay oo waa uu baxay wiilkiisa ayaa ka soo hayaama mar kale magaalada Hargeysa waxaana uu yimid magaalada Muqdisho si toos ah warbixin la baahiyay looguma cadeynin in argagixisada uu ka tirsan yahay in kale laakiin isagoo qori wata waa kan oo dadka Muqdisho ku dhaxdhacaya gabar yar mobile ka dhacaya ugu dambeeyna laamaha ammaanku ay gacanta ku dhigeen markii ugu horeysay waxa lagu xiray saldhigga booliska ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir isaga ayaa qirtay waxaana uu si cad u sheegay in uu dhalay Ahmed Godane argagixisada aasaasay ee khawaarijta ahaa ee dadka badan ku laayay magaalada Muqdisho ee 12 sano ka hor la dilay hay'adda ammaanka gaar ahaan hay'adda nabad sugidda Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa la wareegtay waxaana lagu xiray godka Jilcow waxaana si cad loo ogaaday in ninkan uu ka yimid magaalada Hargeysa aabihii uu yahay Ahmed Godane argagixisada ka tirsanaa magaalada Muqdisho uu ka waday qalqalgelin amni mobilada uu dhacayay ilaa ay hadda si toos ah hay'adaha ammaanka uma aysan cadeynin in ninkan uu ka tirsan argagixisada in kale waxay ku tusinaysaa meesha ay marayaan hogaamiyaasha khawaarijta al-shabaab iyo ragga isku tilmaama amiirada haddii wiilashoodii sidan ay wax u dhacayaan waxay ku tusinaysaa fikirka qaldan ee xadgudubka ah iyo baabi'inta dadka iyaga uu ka soo baxay maantana ay ku nool yihiin iyaga iyo awlaadooduba halis iyo cabsi weyn oo ay ka qabaan in sharciga ay yimaadaan oo gacanta lagu soo dhigo hay'adaha ammaanka dhammaantood ay soo jeedaan waxaana ay la socdaan ammaanka guud iyo dhaqaaqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa markan si dhiiran waxay ula socotaa dhaqaaqa dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka magaalada Muqdisho in ninkan la soo qabto waxay ku tusinaysaa in ammaanka magaalada Muqdisho 100% uu yahay xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeyo hay'adaha ammaanka ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxay ku tusinaysaa in dhagarihii iyo cadowtinimadii Ahmed Godane uu ku baabiyay shacabkeenii iyo dadkeenii Muqdisho ku sugnaayay koonfurta guud ahaanba fikirka argagixisada uu ka shaqeynayay in maanta ay ka soo baxayso wixii uu geystay isagoo xitaa qabriga ku jiro ee la duqeeyay lana dilay sidoo kale warbixinta ay dawladdu baahisay waxay si toos ah u sheegtay in baaritaano kale ay socdaan laguna raajoogo rag kale oo isaga la socday markii xogta la helayana waxa uu wato qori AK47 yar kale ayaa la socday waxaana ay dhacayeen dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa lagu raajoogaa rag kale oo isaga la socday dad kale oo waa kala yimid magaalada Hargeysa oo Muqdisho ku dhumaaleysanaya dhammaantood hay'adaha ammaanku waxay sheegeen inay heleen xogta isla markaana ay ku raajoogaan iminka inay soo qabtaan ay u dhowdahay xogta ay ka heleen wiilkan dhagar qabi Ahmed Godane u dhalana ay suuragal ka dhigayso in la helo xogta rag kale oo argagixisada ah iyo kuwa ay dhaleen oo Muqdisho ku dhumaaleysanaya waa guul weyn oo u soo hoyatay shacabka magaalada Muqdisho ilaa ammaanka dawladda in la helo nin dhagar qabe oo kol hore la dilay wiilkiisa oo wili dhagar maleegaya shacabkana dhibaateynaya intan in ka badanna waa uu geysan lahaa Muqdisho awoodiisa waxay noqotay in mobile uu dhaco iyo in dadku uu handado waxaan hay'adaha ammaanku markan uu kula xisaabtami doonaan wixii uu geystay iyadoo uu ka soo muuqan doono hay'adaha cadaaladda ee awoodda u leh ee garsoorka dalka